example kana 1.9 waxaan nisi mass ka waa 0.5 spring constant k oo ah 180 newton per meter amplitude kana oo ah 15 cm iyo sidoo kale waxaan nisi su'aasha b na displacement waxaan leeyahay su'aasha total energy total mechanical energy waxaan leeyahay total mechanical energy on e sub t uqaadana waxaa lagu helaa 1/2 ka square. Yes, this waxaa leeyahay waxay leedahay 1/2 kda oo ah 180 newton per meter oo yes oo kurusan amplitude kan waxaan sameynaynaa marka asaga iska bedelayna wuxuu noqonaa 0.15 meter boqolaan fahmayna marka waxaan ku fahmaynaa 0.15 meter square. Yes, waxaan leenahay marka waxaa lamid ahaana 180 loo qaybshay 9 newton per meter oo lagu dhuftay 0. yes kana isku bedelayna waxaa leenahay 0.15 square and that is 0.0225 meter square. Yes, 1 meter and 1 meter as a thing. This is how I all of the 90. Let's have also high in ET at high 2.025 yes newton meter. meesha marka noodka waxa ku ah in 1 newton meter uu leeyahay 1 joule. Yes, et waxaana waxa la dhahay 2.025 joule. Yes, hada marka ku xisaabtay asina kan ku fato waxa la dhahay police data ugu dhigtay 0.0225 divided by 2 or in that here. Okay, waxaan ka shaqeynaa su'aasheena b aan imaanay waxaan hadii displacement inta ay wax soo heshay speed. Yes, speed ka soo harana waxaan leenahay v waxa lagu helaa hadaysan v dana maximum ay macna hadaan u qaadanayno extension displacement to c and v waxa lagu helaa intee hadaytu waa soo burfinay root k square minus x square. This view waxay keenaysaa line aan runtii boqol iyo sideetan loo qaybshay 0.5 oo ku dhufsan x square ka ah 0.15 square laga jaray yes 10 kan waxaan noqonay 0.1 alana marka waxaan noqonay 0.1 square. Yes, all of the data v waxay noqonaysaa marka yes على 0.15 square laga jaray 0.1 square waxaa lamid tahay root 180 alpha 0.5 ku dhufsanee 0.125 v waxaa lamid tahay yes 180 loo qaybshay 0.5 oo lagu dhuftay 0.125 and with that root of 45. Yes, root 45 equal root 45 equal 6.708. Yes, meter per second. Where is meter per second comes from 6.708 meter per second. Yes, وعلى أنا ما كثير ماشي. كيف واحد وعبر نيوتن divided by meter. waxaa u sii qaybsan mass oo ah kilogram waxaa ku dhufsan intaan meter square oo ah labadana la kala jaray laba unit isku mid ah kala jaro one of this waxaa leenahay marka intaan markaan haysan waxaa leenahay this waxay la tahay newton loo qaybshay m lagu dhuftay 1 over m 1 over yes 1 over kg this all could have said yes meter square waxaa leenahay kanan bedelina waa kilogram could have said meter per second square yes oo loo
qaybshay meter oo ku dhufsan 1/kg newton ka inta lagu leeyahay inta oo ku dhufsan meter square yes meter to meter kilogram to kilogram waxaa noo soo haray per second square oo ku dhufsan meter square ku soo dhufan waa meter square oo loo qaybshay second square inta haddaan dib ka saarno ee xisaabta ku jirta waxaa noo soo baxeen meter per second yes ina fahmeen waxaan qaadanaynaa su-aashada b waa ka shaqeyn c aan ka shaqeyn su-aasha c waxay leedahay maximum velocity waxaa leedahay maximum v of max waxaa lagu helaa waxaa zero ah displacement oo ku dhufsan amplitude yes waxaa leedahay rutee 180 loo qaybshay 0.5 or of the amplitude or 0.15 yes وعلى نمك الروت بقول السيدة divided by 0.5 yes times 0.15 yes v of max وحلم كان لنا 2.846 meter per second yes meter per second مش بإيمان وأنا ذكرت وافير و 5 meter per second yes وحللنا هاي سيدو كله نيوتن لو قيمشي كيلوغرام yes نيوتن لو قيمشي متر أو كيلو متر أو لو قيمشي كيلوغرام لو قلته متر all of the column meter مسموح إنت أنا متر yes root وحللنا مركب نيوتن كو كيلوغرام meter per second square divided by meter times head على divided by kilogram kilogram بتاعتها مثلا 1 of kilogram or root kilogram to kilogram meter to meter root كم حطوها second square or yes per second square yes per second square 1 كم هو 1 second كم هو second محطوط في meter وحللنا هنا meter per second yes meter per second velocity